daawadayaal waxaan isku dayi doonaa inaan idin soo gudbino taxano ku saabsan qisooyinkii ambiyada qaar ka mid ah haddii alla idmo si ay cibro qaadasho inoogu noqoto. qisada koobaad waxaan kaga warami doonaa nuux calayhi salaam iyo qoomkiisii. nebi nuux waxa uu ku abtirsadaa idriis binu yarid oo awowgiisa afraad uu ahaa nebiyullaahi aadam calayhi salaam. nebi nuux waxaa la sheegaa in uu dhashay 126 sano kadib dhimashadii nebi aadam calayhi salaam. taariikhyahanada qaar ayaa waxay sheegaan inay u dhexaysay 146 sano, kuwo kalena waxay gaarsiiyaan 166 sano. sida ku xisan kitaabka bukhaari, ibnu cabbaas waxa uu yidhi waxaa u dhexaysa nebi nuux iyo nebi aadan 10 qarni, dhammaantoodna islaam ayay ahaayeen oo wax ilaahay ku kufriyey ma aysan jirin. sidaas darteed nebi nuux qoomkiisii waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee arlada korkeeda ilaahay ku caasiya oo ugu shirki yeelaa. culimmada taariikhdu waxa ay sheegeen in nebi nuux calayhi salaam uu noolaa 1780 sano, waxaana uu ahaa nebigii ugu cimriga dheeraa ambiyada. culimmada qaarkood waxa ay sheegaan in uu noolaa 150 sano. ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyaa radiyallaahu canhu in uu yidhi nuux waxaa loo soo diray qoomkiisa isagoo 40 sano jira, waxaana uu qoomkiisa u baaqayay sida uu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay 950 sano. duufaantii qoomkiisa lagu halaagay kadibna waxa uu sii noolaa 60 sano. haddaba sidee ayaa qoomkiisii u caasiyeen ilaahay? nebi nuux qoomkiisu waxa ay caabudeen asnaam, waxayna ka leexdeen cibaadadii ilaahay. shayddaanka ayaana sidaa u qurxiyey, waxaana kitaabkiisa ku sheegay bukhaari marka uu soo warinayo tafsiirka ibnu cabbaas ee aayadda 23 suuratu nuux. ilaahay waxa uu yidhi وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. nebi nuux qoomkiisu waxay yidhaahdeen iyaga oo dhexdooda isla hadlaaya, ha ka tegina ilaahyadiinna oo ha ka tegina ilaahiina wad, suwaac, yaquuth, yacuuq iyo nasra. magacyadan waxay ahaayeen asnaamtii ay caabudi jireen ilaahay sokadii, laakiin magacyadan asalkoodu waxaa u noqonayaa niman saalixiin ahaa oo wanaagsanaa oo qoomkoogana cilmiga iyo diinta ilaahay bari jiray. markii ay dhinteen ee la duugay ayaa qoomkii waxay yidhaahdeen nimankan saalixiintahaa oo wanaagsanaa waa inaynu u samayno taalooyin iyo sawiro si aynu cibaadadoodii mar kasta u soo xasuusanno oo ilaahay aynu caabudno sidii ay u caabudi jireen. faracyadii iyo jiilalkii dambe ee ka tafiirmay waxa ay u maleeyeen in ay asnaamtam caabudi jireen aabbayaashood. shayddaanka ayaana sidaa u qurxiyey, kadibna waa ay caabudeen. nebi nuux calayhi salaam soo diristiisii ka hor waxa uu ahaa nin saalix ah oo cibaado badan, allahna in badan u mahadnaqi jiray sida uu ilaahay tilmaamay innahu kaana cabdan shakuura. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa uu u doortay inuu noqdo midkii u digi lahaa qoomkiisa ee hanuunka ugu yeedhi lahaa. nebi nuux calayhi salaam qoomkiisii waxa uu ugu yeedhay si dabacsan iyo hadal wanaagsan, waxaana uu uga digay cadaabka aakhiro dambeeya. intii uu dacwaddiisa ku jiray waxa uu kala kulmay dhibaatooyin fara badan, maadaama oo ay ahaayeen qoom madax adeeg badan. qoomkiisii waxa ay isku dayeen inay dacwaddiisa ka hor imaadaan, waana iskibriyeen, waxaana ugu horreeyey oo diiday intii madaxda ahayd ee dhexdooda haybadda ku lahayd, mansabyadana u hayay, iyaga oo ka cabsi qabay inay meeqaamkooda waayaan haddii ay nebi nuux calayhi salaam raacaan. ilaahay waxa uu yidhi فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
aayaddan ilaahay waxa uu inoogu sheegay ama uu inoogu caddeeyey inay 3 arrin ay kaga hortageen madaxdii qoomkiisu. ta koowaad waxay yidhaahdeen waxaa tahay bashar nala mid ah. midda labaadna waxay yidhaahdeen waxaa ku raacaya dadka daciifyada iyo fuqarada ah. midda saddexaadna wax fadli ah ood naga sarraysaa ma jiro, sidaasi darteed waxaan kugu raacno ma hayno. nebi nuux qoomkiisii waxa uu u baaqayey 1,000 sanno oo 50 sanno dhiman, isagoo wax natiijo ah ka gaarin in yar oo rumaysa mooyaane. markii uu ka quustay hanuunkoodii, dhexdooda ayaa uu ka istaagay isagoo u khudbaynaya, waxaana uu yidhi sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay suuratu yuunus aayadda 71. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. qoomkaygiiow haddii uu idinku weynaaday joogitaanka aan dhexdiina joogo iyo waanada aan aayaadka ilaahay idinku waaninayo oo aad dhibsateen, allah ayaan tala saartay ee go'aankiina gaara idinka iyo shurakadiinnuba. arrinkiinnuna yaanu ahaanin mid qarsoodiya, kadibna aniga iila soo aada oo ii soo qastiya, hana ii kaadinina. markii uu sii kordhay quustii uu ka taagnaa qoomkiisu, waxa uu la hadlay rabbigiisa oo uu baryey, allahna waa uu ka aqbalay. allah waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala suuradda nuux aayadda 5, 6 iyo 7. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. nuux waxa uu yidhi, rabbigaygiiyow qoomkayga waan u yeedhay habeen iyo maalin, yeelmadaydiina uma ay tarin inay iga sii firdhadaan mooyaane. mar kasta oo aan u yeedho si ay kuu rumeeyaan oo aad ugu dembi dhaaftidna, dhagahoodii ayay furaysteen, madaxiina way daboosheen, gaalnimadiina way ku adkaysteen, waana isweynaysiiyeen. intaas kadib ilaahay waxa uu amray nuux inuu sameeyo doon, waxaana uu allaweyne u waxyooday in aanay cid kale oo qoomkiisa ka mid ahi rumaynaynin intii hore u rumaysa mooyaane. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. doonida samaynteeda waxaa ka caawiyey malaa'ig iyo intii mu'miniinta ahayd ee rumaysay. doontaasina waxay ahayd mucjisadii nebiyullaahi nuux ilaahay ugu gargaaray. samaynteedu waxa uu qaatay wakhti aad u dheer. nebi nuuxna waxa uu soo ururiyey alwaaxdii, waxaana uu bilaabay samayntii doonta. mar kasta oo kuwii kufriyey ay soo maraan waa ay ku jeesteesi jireen, maadaama oo meesha ay ku noolaayeen aanay ka dhoweyn waxbada iyo waxwaabiya toona. waxaa gaadhay wakhtigii qoomkiisa la halaagi lahaa. markii uu nebi nuux calayhi salaam ee uu ka faaruqay samayntii doonta, allah waxa uu ogeysiiyey calaamadda uu ku garanayo wakhtiga ay duufaanta cadaabku soo dhacayso, oo ah marka ay burqato foornadu. waxaana la amray inuu ka qaado nooc kasta oo xayawaana, shimbira iyo makhluuqaadka kale oo dhan, mid kasta oo ka mida 2 jinsi, lab iyo dhadig. waxaana la wariyaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo jamciyey dhammaan makhluuqaadkii, kadibna mar kasta oo uu laaco nooc kasta oo ka mid a, gacantiisa midigna uu ku soo qabanayay labka, gacanta bidixna uu ku soo qabanayay dhadigga. sidoo kale waxaa la amray inuu qaado ehelkiisa iyo intii rumaysay. waxaa ka mid ahaa kuwii halaagmay ee kufriyey nebiyullaahi nuux xaaskiisii iyo inankiisii. nuux calayhi salaam waxa uu isku dayey inuu inankiisa soo hanuuno oo uu soo kaxeeyo oo uu ka mid noqdo kuwa badbaaday, balse waa uu diiday, isagoo yidhi buurtaa dheer ayaan biyaha ka fuuli doonaa oo aan ku badbaadayaa. sidaasi ayaanu kaga mid noqday kuwii halaagmay. maalintii uu cadaabku soo degay,
ilaahay waxa uu amray biyaha inay qorqoomiyaan arlada oo dhan, dhulkuna uu burqado biyo, samaduna ay soo dayso roob aan weligii isaga oo kale dhulka ku di'in. biyihii waxay gaadheen geedaha korkooda ilaa ay dhaafeen buuraha figtooda. halaagu waxa uu socday ilaa ay qarqoomeen wax alla wixii arlada ku sugnaa intii doonta nebi nuux calayhi salaam ee saarnayd mooyaane. markaas ayaa uu alleh waxa uu amray samada inay joojiso roobka, dhulkuna uu liqo biyaha. nebi nuux calayhi salaam iyo intii la socotayna waxaa la amray inay soo degaan. doontiina waxa ay ku dul istaagtay buurta juudi, waxaana bilaabantay nolol cusub oo aanay arlada ku noolayn cid ilaahay u shirki yeelaysa intii alla rumaysa mooyaane.